dagaalada laga sheekeeyo waa joogto dagaalka dhaqaale waa joogto ka cunaq qabatay waa joogto ka propaganda waa joogto waxa la yaab leh oo taariikhdu inoo sheegaysa dagaal cid ku gaadho waa la waayay Soomaalina sodonkiisa ama 40kiisa oo dhawaad u dambeeyay dagaal u dambeeyay ku jirtay waana wada degtay caqliga toosan Soomaalidu maanta meel jirto waxay baantay inay qoriga inta taran ka dhashato laakiin waxa arkayaa dawladda maanta xal ka dhisan ee baydhabo wareeysa dadka kuleynaysa ee kismaayo u samaysanaysa ee Puntland dibadda ay kaga baxsatay ee Soomaaliland dagaalka ku haysa ee iyada uu ilaalinaya ciidamada qaramada dawladda ay ilaalinayaan ee qaranimada dawladda dagaalamaysa garan mayno fidmadeedu inta ay Soomaali ka midowsan laakiin Ilaahay waxa lagu rajaynayaa in Ilaahay fidmadeeda laga geliyo inaguna uu diyaar garoobaynaa waxa ay dhibaateen oo yimaadaan dhinac walba inuu iska daafacdo laba hal la isma qabanaya waxa soo baxay oo dawladda xamar ee farmaajo ee khayr keenay inay yiraahdaan Soomaaliland xadkii Ingiriiska iyo Talyaanigu dhigteen ee xuduudda isticmaalka Afrika laga tagay aqbali mayno ee waxaanu sameynaa xadbeelad horta beel gudaheeda hataa haddii xasbaysta dhismi kanaysaa ma jirto oo taariikhdeena tustay waxay loogu filan tusaale farmaajo oo ku soo dagaal gelinayay Cabdiwali oo ka horeeyay ninka imika la doortay waa in la sameeyo xudbeeleed xudreebada waxa la yaabaa xudbeeleed uu doonayaa isaguna banaadir buu xukumaa labadaas isma qabtaan waa talabaad xadbeeleed buu doonayaa oo dad ku laayay oo lagu soo weeraray oo dad Soomaaliyeed u baahan dhaawacyada dhimasho uu ku galay oo Cabdiwali ka aqbalay waxa la yaab leh markii isaga la dooranayay waxa la tartamay oo ragii maasha ugu aqoon badan ugu cadaa kamid ahaa Ahmed Ismaaciil Samatar markuu doorashadii xawar farmaajo gaar waxa loo wada dalkaaga tan oo ku dhaco waxa uu ahaa ninka tuuliga u badan galiyay Soomaaliyeed Ahmed Ismaaciil Samatar uu loo waxa yaala Ismaaciil Bugaaba ka wareegay 10 sano oo ahaa wasiirka khaarijiga uu loo waxa meesha yaala ninka xamar ku yimaadeen saa u dilayaan Soomaaliland way la dagaalamay hargeysa burciyo boorbiyo la sacan soo dagaalamay